ده هي لا ديلو فقين dhaqankii awowgay boholyaana lagu riday السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيار تشرفته والله وين سلام عليكم صديقين دعالي كشوكتان وأنا يوم مغربية مركلة إذن كيو عفلوينا دعاف ما غبتان الحمد لله دعاف ما غبت له نونا عاف ما غبنا سودو هذا مركلة يوتيوب كأني مغربي عبدي يفيديو كلا وصب سودو أمين برا ودو هاي مرة دويد صوتها وأسلامناجي أون maanta waxaa laynii wadaa barnaamij kale oo aad u xiiso badan oo hore nooga barateen waxaan salaan leenahay imaanay barnaamijka waxaa noo sii faahfaahinaya saaxiibkay ama faahfaahin badan oo baahan inka arki doona barnaamijka waa arkaysaa waa gudagalaynaa dad nala sii joogtay daawaday waa arkaysaa waxaanu idin wadnay waxa weeye barnaamijku haddaynu Soomaali nahnay weliba dhalinyarteena dambe inta inaga amala Somali buyura waa kana mujidna buyura Somali barax tiran kuma hadalno Somali barax tiran kuma hadalno Somali waxaan ku hadalnaa qaar u filaysan Carabiya adoo waxa dhigi kara waa qararac la gooy isku dar macna mushakal meel ba wax ka soo qaadanaa Carabi meel ba Somali ka soo qaadanaa meel English ka soo hadda waa kana waxa rabinaa inuu Somali barax tiran waxaan soo waday Somali buyur ah yaa marka barnaamijkan wuxuu yahay 2 daqiiqo qof loo qabanaya 2 daqiiqo uu sheekeynaya ama se khudbad soo jeedinaya khudbad sidii madaxweynayaasha camal inuu musharax yahay oo baarlamaan ama shacab uu khudbad u gudbinayo oo codkooda ka rabo laakiin uu soo jeedinaya hadda waa khudbaynaya oo kale أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله هذا الشيطان هذا سنان الشيطان واحد سنان وكذا ما تشنو وصافي له الشيطان كده دين تانية أعوذ بالله من إنه نغنى صومالي أو الشيطان سنان يا الشيطان كان يقفوي بس كصعب عادي لكن وحا مهمة تهاي 2 دقيقة لو قمانية 2 دقيقة لو قبتي وإن صومالي أكون هاشا صومالي برحترم أنا أكون هاشا صومالي برحترم عندي أن فهمينه وصومالي wax ku jirin bilaa mushakal Soomaaliga sax ah inaan hadashaa ama shaka ka sheekay ama khudbad soo jeedi aday ku taala khudbad hadda waa Carabi khudbad maxaa lagu dhahaa Soomaali u dhaha ya khudbad Carabi baan ruuxeen hadda ku hadlaynaa waa ku jirnaa macna hadal jeedin ama hadal jeedin soo jeed ama shaka ka sheekay waxa laga rabaa 2 daqiiqo aad leedahay waa lagu qabanayaa af Soomaali barax tirana ku hadashay barnaamijka waa inoo السلام عليكم شعبك شرفت له برنامج شرفت له هذا الشيء يعني 2 دقيقة على يقط حروا إن أنشلو كل هذا فار سوق ويسوق وينك بلا ده فار سوق ويسوق وحروا أيوة كنا وحن صومالي مع عربي إنجليش مع عربي سوق اللي سوقت وحروا إن أنشلو مدحوينه أما مدنه وشرحان حل أو خدمة سو تشيدني هذا الشيء سو تشيدني عفوا كاكو قفته هذا الشيء سو تشيدني لو دقيقة دان سيو هذيك لو دقيقة جارسين كرواية ولا غيره لو دقيقة طبعا أنا ويستأجر لكن ما حكى لي يادو هذا دقيقة أما هذا دقيقة بر هذا كان كوكا هنا مداس أو دقيقة وصعدي هذا ممكن تشيل ناو هذا الله أسكت هذا دقيقة دقيقة لا يعني هذه دقيقة حوالي لحظة دقيقة مع نقولها عربي أظن لحظة واحدة كسر لحظة روية السؤال الثاني بسم الله إبرو بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلامي مدنيال مرويين dhammaantiin saabdantihiin magacayga waa haysaan xogteeda waa haysaan waxaan ahay musharax u taagan xilka doonaya in uu qabto xilka suna soo sharaxay qof walba oo soo sharaxay tan aan soo sharaxay wuxuu soo sharaxay waxaan rabaa inaan meesha shaqo ka qabto maadaama aan isu arkay inaan ahay qofka ugu habboon
halkaa ka qaban karaa warade wixii professional ah waxay gelin dhiiqada baabala war ninkaanay horta waa is hayaanu maadaama aan hay isu arkaanu ninka halkaa ugu habboon ee geli kara waxaan doonayaa in aad isiisaan codkiina waxyaabaha aan qaban doono waxaa ka mid ah in aan guryeedin dhisi doono oo sii wadayna 2 daqiiqo dhammayso ma halda keeda waa inaad ruuxa la jin dhammayso in aan suuliyaal idin dhisi doono in aan jikooyin idin dhisi doono waraa jiko afrikadaas laga isticmaalay xataa Soomaali ma ka dhacay jiko aanu wax Soomaali kale ma arag jikako in aan idin kala socon rag iyo dumar waa isku daraya waa daa xilliga ku guuleysto mudanayaal iyo marweyn waxaa idin ballan qaadayaa baarlamaanka halkaa fadhiya mudanayaasha inta la soo qabo ka hor isagoo soo qabtay naga soo qana baarlamaan waa carabi macna musharaxiinta English way baarlamaan carabi baarlamaan English way carabigana waa lagu qoran tabtiisa lagu qoran ka socowaaya mudanaha halkan fadhiya iyo marwada halkan fadhida inaan isku dari doono waa ballan idin qaadaya waa isku dari doona waa isku gurgelinaya macna af Soomaaliga iyo Arabta oo fahansanahay inaan isku gurgelin doono kuwa iska bulada waxa weey waa ma sha Allah bidahaya stop waa ruux si dhamayso khudba is enough aan si dhamayso kala istiraalaxday gudoomiye hal daqiiqo gudoomiye hal daqiiqo barnaamijka ilaali harka barnaamijka hal daqiiqo gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin waa idin ka sii tagi doonaa haddana waan sii socdaa ogaada waxaan rabaa halkaa xilka in aad igu hadlaysaan aniga ii dhiibtaan waa been way been yaa babala noo bilow sida ama sheege ama sheeke ama khudbeed may oo wari askar dhigaya haye ku soo wala baahan saddex beesh dhawa ka qaato wareennimo ee taqaanid wareennimo waliba af Soomaali warkiis ku soo baxo soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim jiraan ya daqadii ay la taraareen wali aan hal daqiiqo waa bilaabmatay waa tahay dhageystayaal ku soo dhawaada wararkii barqadimo oo laba nooga barateen saacadu marka ay tahay xilliyadan oo kale xilliga dadaweynaysay saaca gorsheegtu markay tahay saacad ka haya dhiiqadii koodan ka haya soo oo laba nooga barateen gorsheegtu marka ay tahay 4 ilaa 5 ilaa 6 ilaa 7 qodobada wararka ugu doorka roona waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo kulan wada tashi la qaatay federaal ku soco madaxweynaha dowladda Soomaaliya dowladda federaal maxaa way marka Soomaaliya ka socodaya madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo kulan wada tashi la qaatay madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni Puntland waaya mudane Saciid Cabdullaahi waa ku qaadanaa wixii magaca ku soconay wixii magaca ku qaadanaa sababtoo Soomaali ma jiro mudane Saciid Cabdullaahi Deni kaasoo ay ka wada tashteen masiirka arrimaha Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland sababtoo ah waxa qalalaasay weyn ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Cristiano Ronaldo oo diiday in uu u sii ciyaaro Man United kadib markii ay khilaafaad iyo koob la'aan daba dheeraatay iyo abaar ay soo wajahday Man United soo foosaaday soo carqaladeysay waa shaqeynaya wallahi wariyaasha qabsada ilaa dhowr xabaan soo qabta hadda warniga wariyaasha waa daba dhigtaa warta waa tahay mudane wariye warka intaas inoo ku yahay waxa fiicnaan lahayd wariyaasha in laga saaro booska anagana la geeyo waana saas ka ilaalinayno masiirka iyo wasiirka saas ka ilaalinayno wasiirka la iska ilaalinaya bal niyo maanta idaacad dhegeysanay weli ma dhegeysan Facebook iyo wax buuqaya ka armaya BBC baa dhegeysanaya maanta
wasiirka masiirkan soo qabanaya يعني midka uu yahay yani uu isticmaalaya wiilasha tada kale waxa ka daran waxaan soo lamtaana accountiyada baraha bulshada kuwa xitaa iska daaya kuwa shakhsiyaad ku leeyihiin kuwa hay'adaha dawliga ah iyo wallahi been ma iyo dabcan dhaxda waalna saaw ما يد واحد يربى الشيء يعني واحد يربى برنامج بحث واحد يربى الشيء شخصيات شخصيات يا بحث أنا هو صالحان ورياء أن شيء تلفزيون وكله تلفزيون عارف بوجو دايركتين وررك أي سوق ريان مرر واحد أركز الصومالي خلطنا دول كله داعي واحد سوق ريان شخصيات بدن واحد أركز ساعة أما هيئات بدن سوق ريان واحد أركز ساعة الصومالي جتان لو سو غلاyo alaab lama qarsan alaabta whatsapp maalinweed warqad baan akhrinay soo qoray dawlad ka soo baxday camal oo qof laga bedelay meel warqadaas warqada waxa muddo inaan soo hubin 500 meel adigu erey waa la qori rabaa moogta erey inta hore laga qoriyo inta dambe waa go'an tahay macnaha waa la ilaawi toosa ereyaashi laba dhaca kuma jirin horta laba dhic Soomaali waa ka dhintay ereyaashi laba dhic jiray waa la ilaaway jiilkeena dambe waan ku kala tagnay calaam su'aalkii male wixii male Soomaali qobi qaca baynu hadda ku soconaa dalkeena waa lagu kala tagay oo anagu khayraad iyo luqad iyo af iyo dhaqan lagu kala tagay dhaqanka waxa baadiyaha oo lan jira dhaqankiina baadiyaha laga daba tagay waa lagu baabiyay Allah inoo sahalo barnaamijkan inta ku soo koobayna tan inta barnaamijkan barnaamij lamada ku kulmayno saasay nabadgelyo Soomaaliga iyo dhaqankana alla ilaaliyo kulay tag god buu galay bal aynu xun ka daba tagno waa kana saasa maanta naga dhameeyay aanu laba daqiiqo kaliya aanu Soomaali baraxtan ku hadlay weyn dahayaa la dhaylo fogin dhaqankii awowgii booliyaana lagu rid marka abwaankuna waa nala joogaa marka dalkeena iyo dhaqankeena iyo luqadaheena aynu ilaashan دي كلام ندلونه مالها إنه سكايا السلام عليكم